بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرين waxaan rabaa inaan mahad celiyo bulshada qiimaha badan ee reer Jarmal meel badan ka imaaday sidoo kale dadka meel fog ka imaaday hadii aan lahayd Belgium hadii aan lahayd Faransiiska iyo meelaha la midka ah waxaan rabaa inaan aad idinkaga mahad celiyo sida wanaagsan ay soo dhaweyseen oo quruxda badan oo markii ugu horeysay xildhibaan aad saan soo dhaweysaan anna farxad ay tahay wax gooni ku kasbaday ma lahan laakiin maadaama aan nin dhalinyarada ka soo shaqeeyay hawlo badan dadkaan isla soo marnay codkooda aan ku hadlaayay taas waxay keenaysaa qof walba oo dadkiisa garab u noqdo ama qof walba dadkiisa rabitaankooda ku hadlo inuu helaayo ixtiraamkooda inuu helaayo laakiin maalinta dadkaada aad kala leexataan inaadan helaynin sidaan oo kaleeto qof kastoo iga dambeeya ogaado in dadkaada aad wax ku tahay وصار يكون جعلها مركز عندكم هذي واحد يجعلهم عندكم متشين عند ماشي تركوا مثلا للتكست وحنا مرتين مقعي محمد عبد الله القرآن اللي هذا نانستي السداو المغليسي مركز يراها هذا السووي هذه أنا وحقول الشيء بلدوينه waxaan ku barbaaray dugsigayga hoose dhexe sare ilaa jaamacadeeda uga baxay magaalada Beledweyne aniga loo kala ahay weligii qofuma tagin hadda ay ugu horeyso oo Yurub imaaday dalkaygaan joogay gobolkaygaan joogay magaaladeedaan joogay meesheeda ay imaansaday ugu dambeyn waxaan fursad u helay inaan kursiga reerkayga uu leeyahay aan u tartamo ka hor inaan intaan kursiga noqonin waxaan ahay gudoomiyaha dhalinyarada gobolkan soo noqday waxaan soo maray xilliyo adag aan soo marnay 2012 xilligii nimankii nabadiidka shabaab ay laga baxshay magaalada Beledweyne runtii iyadoo ay adag tahay xaaladda oo qof walba naftiisa oo la cabsanayo oo inuu askari sanaamo iyo la dilaayo ayaan go'aan qaatay in aan maalintaas aan gudoomiyaha dhalinyarada noqdo الله نحرست رك بدن مركز قال قيب قاتي قاركود ويكون التيم لماذا سيدنا في قدوميه يقبل دري الله نحرسته ركب ويانا ماشان كوسايو كتو يدو أيانا يقول التيم هو شيء أول ني نسيبنا أنا وقتي صوم قليل خبر ممانع ودمنا يعني مركز جهدي أنجليين إن تدكيجا وحلو عدكور كهل مدعاو كنتي مدرسة كوكة أنا أنت حلمان كان نقضي ما هين واحد دلال في أو باللاودي ما أنت سبدومي هذا اللي يرى هيدا كي كانوا أديري لو حرر الصومالي ده ماشان دكتور تناول مهد عليو اللي قاس لو حاجري دباتوي بدن أو صو جهد قبل كوي بحكم ده صومالي ده نصو بالمتي الحمد لله ما يعاو صومالي وين هو كلام يفلسوا قلت هذا نقول مهد علينا يعني وقت بدن يجود بدن عن كسر الشقي وحال جاري إن أنا كبو الأورو كده اليرادة وحاجة عقبات بدن ضد كيجا وحالة استمامل آد لوجو دقدقي دبوا دعنا كوكيني مقالة حل جاسات وفي عناد نبض هذا هرمك لهذا ما أنت دبوا دكتي ومعمل بشان أنا مركز أود بدن ما لهين لكن برشة هجومنا عدكي وجود دفاعي جري عدكي قلوب النام به جري واحد استيقظ طبعا كل شيء جري واحد وصل شيء كذا دتكي ومعه بلدرين عن هاي أنا عدكي عدكو كهلا وكوعدكي سنة السينما هذيك سنة قايلنا وخفر بالله هاي اللي ما عرفتها maamulka ka xisho si aad ku helaysid laakiin aniga go'aankayga marnabo maalina meel uma leeyahay
xilka ilaaha baxsho laakiin qofka ninka ragga waxa u fiican inuu gobonimo wax walba ku helo inaad calaacashid ama aad tuugtantid ama aad dadkaada qiyaantid waxba kuma noqonaysid alxamdulilah anigoo dadkayga u doodaayo ayaan kursiga aan xaq u lahay oo reerkeyga lahaa ayaan ku guulaystay ayadoo dadkoygana ay la jiraan qolada meesha joogtana ay iga soo horjeedo maalintaas wixii ka dambeeyey dadkaygu dhibaatooyin ay galeen niman nabadiidu al-shabaab la yidhaahdaa dadkii baabi'iyey ceelasha ka gubay hooyooyinka dilay dadkii baabi'iyey waa u soo gurmaday runtii garab aan u noqday maalintaas waxaan la qaybsaday dadkayga inaan cadowga ka difaaco meel kastaan la maray ugu dambeyn dadkayga waxay ka guulaysteen nimanka al-shabaab ahaa waxay muujiyeen in la iska celin karo waxay muujiseen dadkayga soomaalina tuseen al-shabaabku in la iska celin karo lagana adkaan karo alxamdulilah dadkayga way ka guulaysteen taas waxaan idinkaga sheekeynayaa mar walba dadkayga inaan la dareenahay oo mar walba waxa ay rabaan aan la joogo intaas kadib waxaa soo baxday in xilligii ninkii hogaaminaya dagaalka oo hogaamiyihii dadkaas ay cali jeyte xilka laga qaaday annagoo markaas maamulka saluugsan la fadhiisanay dhowr jeer kala hadalnay in waxaan wax laga bedelo ay diideen mar haddii dadkayga la ahaanaysanayo anigana hadda xildhibaan aan ahay baarlamaankii aan ka hor sheegay waxaa jiro dhibkay dadkayga lagu haayo awoodna aan u leeyahay markaan inaan xasaanadeeda ku difaaco haddii xoog tahay iyo haddii ay tahay afbo waa ka soo gudubnay markii aan afka ku difaacayay waxaan isticmaalnay awood inaan ka qabanno nimanka cadowga oo shabaab ku-xigeenka maanta meeshay taagan tahay insha allah halganka dadkayga iyo sida ay rabaan way soo gabagaboobi doontaa one day waxaad tihiin waxaad joogtaan dal aan dalkiina ahayn runtii maanta waxaa ku joogtiin oo dhowahay dalkan waa dal islaameed waxa idin sugaayo oo maanta hadduu nabad noqda u noqon lahaydeen waa dalkiina waa ogahay xaaladda aad ku jirtaan mar walbo waxyaalaha aad la kulmaysaan mar walba waa dareemaya intaan qurbaha joogay wax badan aan arkay wax badan aan nood gareeyey wax badan aan ka dhageystay waxyaalo badan oo jiro oo baarlamaanka aan loo hortagi doonaa jiro arrimo badan oo ku saabsan dadka dhibaatooyinka halkaan ka haysto weliba jarmalka ay ugu badan tahay soomaaliya laba dhibaato haysato waa al-shabaab iyo dowlad goboleedyada caqabadaha taaganna waa laga gudbayaa laakiin hadda waxaa moodaa dalku isbeddel inuu leeyahay annagu baarlamaanka inaan wax badan oo sharciyo badan oo dalka ilaa dowladda sheekh shariif yaa la ansixinay in deyntii la cafiyey in cunaqabateynta hubka la qaaday in la dhammaystiri doono howlgalka labaad ee al-shabaab lagula dagaali doono maalinta shabaab dalkaas lagu xureeyana wuxuu noqon doonaa dal fiican aad ku noqon doontaan nolosha meeshaan dadka qurbaha jooga ay ku jiraan aniga waa maqli jiray laakiin sida dhabtaa arkay meeshaan qabowga badan iyo culayska shaqooyinka yaallo ana dadka dhihi jiraan ku jira oo qofkaas qurboo jira ama lacag soo dhiibo dadka laakiin dadkan ayagaaba dhibanbo xaaladooda ay iska adag tahay oo shaqo iyo ma aragtay waxyaalo badan oo dhibaatay maadaama dalkooda aysan joogin sharciga laga qaadan karo intaan joogay aniga hadda maalinaan Finland ka degayna aniga xildhibaanka kale waxaan la kulmay diyaaradda markaan ka degnay oo rabnay inaan airportka ka baxno waxaan celiyey askaraan celisay 5 nin oo askar oo ay wadato waxay dhaheen baasaboorada keena baasaboorada waa siinay way fiireen su-aalay weydiiyeen waa u sheegay anigu inaan baarlamaan nahay way noo socdeen baasaboorada waa sacan yihiin dhaheen أنا ما كذا غير مركز سؤال ويدواي أنا ديارة أنا أنت سوقف وشعتانه لو بدي إنه مذوق إنه نوعي إن مسلم لماذا يمذوق أدخل الوعي السريين يعني ما كان أساس ليه هاي واحد صوبته هدية عليه أنا كنا ما كان جعلين وأنا دي أنا سلك أنا ودمت كنا مرة عند وأنا قنا يا
laakiin waayo dadkaan annaga labadeena keliya aanan noo takoonay marka intaasi in ka badan inaan la kulmaysin warkii aad ula xumaaday raalli ha way dhaheen way diidayeen sababtoo anayna ku dhiiranaya arkeen waa dareemayaa marka waddana waddankiina ahayn in culaysyo badan ay ku joogtiin laakiin waxaa la rabaa dalkaas hadda aad ku nooshihiin inaad shuruucdiisa ilaalisaan inay dadku wax bartaan waxbarashadu wax muhiim waaye fursadaa ku hesheen dal nabada imaadeen inaad ka faa'iidaysataan intaad joogtaan weliba dhallinyaradan la hadlayaa inay ka faa'iidaystaan waqtigooda ka faa'iidaystaan waxyaalaha xun inay iska ilaaliyaan qofka horumarkiisa uu ka fikiro midda kale oo idin la dardaarmaya waxaa waa waalidka in aad loo ixtiraamo guusha hadda idiin sheegaya waalidku waaye aniga waxaan aaminsanahay guusha aan gaaray waalidkeen ku gaaray aabbe allah u naxariista laakiin hooyaday anaad maaragtay mar walba ula joogo marka dhallinyarada meeshaan dhallinyara joogto waalidka loo dhigo nuglaado hadduu rabo qofku inuu guul gaaro waalidkiisa ha u dhigo nuglaado runtii caawo waqti aan isla qaadan doonaa waa idiin imaan doonaa sawirro badan aan geli doonaa waa sheekaysan doonaa dad badan oo asxaab nahay maasanta ibraahim waxaa jirta arrin maalin dhaweeto oo dadku isla dhex wareeganayeen oo dadka waa la celinaa la dhahayo dadkuna xoogaa qalad u fahmeen aniga waa u tagay madaxweynaha waana ogaay dad badanna waa u geeyey way la kulmeen arrinta la isku haayay ma aha in dadku sharci darro dadka oo sharciga aan haysan la celinayo laakiin 25 qofood oo dowladda lagu wareejinayo madaxweynahana keligiis ma celin karo waxaan sharciyada u baahan tahay baarlamaanka in lambariya u baahan tahay madaxweynahana dadku sida ay u fahmeen maysan ahayn wax badan oo mucaaradada ah ka faa'iidaysanayay oo mar walba isku dayayay waxyaalaha laga hadlayo in la marin habaabiyo waxaa idin sheegay arrinkaas inaysan jirin waxaa kaloo jirto arrinta baasaboorka soomaaliga oo waddankan aan ogolayn in madaxweynaha muhiimadiisa koowaad iyadoo uu kala hadlay haddana process ay geliyeen ay rabaan in arrinkaas ay dhammaystiraan baasaboorka soomaaliga laga aqoonsado waddankan طبعا دولته وتدارسها إن شاء الله دولتي دخل الله كلا ورا ما جبته إن دولتي أنا يعني كم مثلنا معرض أمريكا في هذا كذا بيو وركوا الصويد لي قال يرينا نعاود في جورنا عاود في يعني سلق هذا النوع ماشي أنا إلا لما كان يسوي جورنا هسورة يسمى وأنا دي ما هذا هو الشيء كيسمى إن شاء الله وقت في عنا وضع قادمة هذا ما سنتي سيدو ونعكسنا يسود ويسنا أي شرفتين عاد قلبي ويستعكين عاو أنا وحا ماشان فيديو هذا فيديو محمد بورالي oo ku faraxsanahay inuu caaw garabkayga joogo waa qofkii lagu sameeyay waaye erjarman way yaqaaneen gudoomiyaha jaaliyadda oo ahay aad ugu faraxsanahay marka adeerkeena caaw inuu halkaas joogo oo ila joogo familkeyga qayb ka mid ah caaw halkaas jooga aad iyo aad u mahadsantihiin wixii hadda ka dambeeyo waa baashaalaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته